qaraxani oo ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lala eegtay dad isugu jiray mas'uuliyiin dad shacab ah oo salaadii jimcaha ku dukanayay masjid ku yaala gudaha Hotel Central ee magaalada Muqdisho. gaariga qarxa ayaa la ii sheegay in lagu horbaakimay masjidka hortiisa oo ay dadku ku jireen ragcada koowaad ee salaada jimcaha. waxa uu qaraxaasi muujinaya dadka geystay inay yihiin cadowga diinta islaamka. markii uu dhacay qaraxaasi waxaan ka mid ahay wariyaal gaaray hoteelka isla markaana gudaha u galay waxaana indhahaygu qabanayeen guud ahaan masjidka oo burburay iyo dad gaaraya 15 ruux oo qaar ka mid ah aan waji ahaan garanayay iyo tiro kale oo dhaawac ah kuwaas oo qabay dhaawacyo kala duwan. daqiiqado yar kadib waxaa goobta gaaray wasiirka amniga gudaha iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo gurmad u fidinayay dadka muslimiinta ay dhibaateeyeen kuwa cadawga ku ah jiritaanka dadkeena Soomaaliyeed. Nasr Basheer Cali, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.